magaalada Joor ee caasimadda Hirshabelle waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle. ugu horreyn waxaa goobta ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwe Canab Axmed Ciise. maanta waa farxad waxaa dib ugu soo laabtay caasimadii dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaheena Cusmaan Barre Maxamed iyo waftigii u ballaaran oo uu horkacaayo. waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow, waxaad ku soo dhawaataa Hirshabelle oo maanta ay tahay 9 Oktoobar maalintii la dhaarshay xildhibaanadii baarlamaanka Hirshabelle. ku soo dhawow, waxaan rajaynaynaa 4 sano dhamaatay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii dhimatay oo baarlamaankeena ka baxday inuu Ilaahay u naxariisto. waxaan leenahay inta noo dhimanna Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad iyo barwaaqo noogu dhameeyo. waxaan rabaa inaan iraado gudoomiye soo dhawow Hirshabelle, ku soo dhawow Hirshabellena. waxaan leeyahay war waqtigii wuu dhamaaday, yaan salaada ee taxiyaadka looga bixin. waqtigii wuu dhamaaday, salaada ha la ilaashado, yaan taxiyaadka looga bixin. gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed. waa maalintii runtii ay ku buuxsantay 4 sano ee baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. maanta runtii waxay noo tahay farxad gaar ah. waa maalintii nala dhaariyay, waa maalintii aan u dhaaranay Hirshabelle. sidaan ognahay Hirshabelle wax badan ayaa u qabsoomay. cidii hadda moodaysay in wax u qabsoomay runtii Hirshabelle waa dowlad goboleed maanta calan leh oo dastuur leh oo yacni golo baarlamaan iyo runtii golo fulin leh. wax weyn ayaa u qabsoomay. haddana waxaan leenahay shacabka reer Hirshabelle meel kasta oo joogaan iscafiyaan. waxaa la dhisi doonaa dowlad goboleed kale cusub ama baarlamaan cusub iyo yacni golo cusub ayaa la dhisi doonaa qofkii Ilaahay u calfa. dhammaanteen hambalyo aan isku jiraynaa sanad guurida yacni afraad ee maanta dhamaatay. sidoo kale annaga waxaan u nimid wada tashi dheer oo ay muxuu ahaay aan la sameynay yacni duubabka dhaqanka iyo dowladda dhexe iyo cid kastoo Hirshabelle bulshooyinkeeda ka mid ah in Hirshabelle maadaama waqtigeeda uu dhamaaday Hirshabelle in la dhiso baarlamaankii labaad runtii ay dowladnimada ka bilaabatay in la dhiso ayaan u nimid. wufuud kale fara badan waa imaan doontaa. annaga waxaan hordhac u nahay wufuudaas kale soo socota ayaan hordhac u nahay. waxaan rajaynaynaa Hirshabelle gacmaha is haysato oo tii hore muxuu ahaay ka tayo badan ka shaqo badan ka dadaal badan runtii inay timaado ayaan aad muxuu ahaay u rajaynaynaa. Yusni Maxamed Axmed, Bulsho TV, magaalada Joor.